barnaamijkan aan ugu talagalnay oo TV-ga caalamiga ee Honkebel uu gaar ahaan ugu talagalay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhagan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii bal dareenkooda ku aadan siday u arkaan madaxweynaha ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa waxay la daadihinayaan Cabdifataax Maxamed Cilmi bal aan ku wareejiyay mikrofoonka markana Cabdifataax si uu barnaamijka halka uga sii wado aad u mahadsantahay Axmed Cabdiraxmaan barnaamijkan oo ah mid aan ku eegayno shucuurta iyo dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii iyo sida ay u arkaan doorashadii maanta oo dhan ka socotay gudaha dalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud walaal adiga see waad aragtaa shucuurtaada walaal aad u faraxsanahay Soomaaliya maanta madaxweyne heshay 40 sano dib ku jirtay Soomaaliya noolaato السلام عليكم مدحويننا waa u mahadnaqeynaa xasan ismo xasan sheekh maxamuud wadankeena 22 sano aan dagaal ku jirnay ilaaha naga bixiyo بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الرحمن عبد الله جبريل كونقن حافظ إسلي إن مقالة نيروبي waxaan halkan ambali gaar ugu dirayaa ex formerkeena oo ahaa dhinkii macadka Simad maadaama aan ka tirsanaa macadkaasi oo aan ahaa ardaydii dhiganaysay dafcadii 2007 iyo 2008 maantana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta arko dhinkeenii hore ee macadka Simad oo noqday hogaamiyaha cusub u soo baxay dalka Soomaaliya waxaan mahambali gaar iyo mahadnaq uga dirayaa dhammaan maamulka Soomaaliya ee maanta hirtaan u dhashay gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud calasow waadna ku mahadsantihiin Honkebel fursadana ay siiseen aad arkaysaan dadweynaha halkan iskugu yimi waxay aragtidooda ka dhiibanayaan u arkaan bal madaxweynaha ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya waana kuwan qaar ka mid ah dadweynaha oo aan weydiinay bal sida u arkaan ama ay ula muuqato aniga waa magacayga Bashka Xaaji Nuur waxaan aad ugu faraxsanahay maanta sida wacana dalka ama sida xorka uu guuleysanay aad baynu ugu faraxsanahay aad ugu faraxsanahay in maanta ay dawladda muxuu ahay midnimo qaran marka aad baynu u soo dhaweynaynaa mudane xasan sheekh maxamuud marka aad baynu ugu faraxsanahay inaynu soo dhaweyno shucuurteena waa muujinaynaa marka madaxweyne waxa ka sugaynaa in wadankeena soo laabano muxuu ahay insha Allah aad baan u soo dhaweynaynaa dareenkaaga aad oo dhibanay السلام عليكم anigoo blackjis oo muxuu ahay dawladda kamid ahay waxaan ku hadana Nairobi joogo waxaan ku faraxsanahay Xasan Sheekh isbedel inuu noo yimaado waxaan salaamayaa Honkebel TV waxaan waxaan leenahay nolol madaxweyne jiro joog wadankana nabad ku soo dabaan madaxtinimada ugu faraxsanahay madaxweyne cusub ee dalka Soomaaliya loo doortay dareenkeena ma la soo koobi karo caawa sidoo yahay waxaan rajaynaynaa kii wajibaadka si fiican u gudbinayaa waa ku faraxsanahay waxaan ganacsatada Islii aad baan waxaan ugu faraxsanahay new president Mr. Xasan oo aan aad ugu faraxsanahay waxaan la leeyahay ilaahay kii dalkiisa iyo diintiisa nafaca I'm happy today naitwa Fatia ana nasema peace in Somalia kutoka Kenya thank you magacaygu waa Fawzi Xuseen Maxamed waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha cusub Xasan Sheekh oo ah madaxweyne aad u fiican waana soo dhaweynaynaa insha Allah Soomaaliya noolaato markii ugu horeysay Soomaalida xaafadda Islii laga dareemo farxad saan weyn ayadoo doorashadii waqti dhow ay soo gabagabowday ayaa waxa dareemaysa in laamiyada xaafadda Islii ay isugu soo bixin dad aad u tiro badan oo u hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeyn walaal soo aragta madaxweynaha waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa
rajaynayaa midkii inuu ka dhigo ummadda horumar gaarsiiya waxaan ummadda Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay wada taageeraan waxaan jecelahay inuu noqdo qof waddanka horumar gaarsiiyo Soomaaliya muddo 20 sano ka bacdi dowladda dalka Soomaaliya waxa ka dhacday doorasho aad u qurux badan waana kuwan qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo ka waramaya shucuurtooda ku saabsan maalintani waana kuwan iyaga hadlaya waxaana ka mid ah hadalladooda أنا magacayga محمد شواي waxaan soo dhawayaa Xasan Sheekh ma sha Allah ha noolaado madaxweynaha cusub ku sareeyna ku baxsanaa yaa taageersanay Xasan Sheekh ay taageernay waxaanu taageeraynaa madaxweynaha cusub iyo gudoomiyaha cusub dawladda cusub hawada Soomaaliya hadda ka soo sida aad arkaysaan laamiyada xaafadda Islii waxa isugu soo baxay baabuur iyo dadweyne aad u tiro badan iyadoo loo dabaaldegay doorashada waqtiga dhow soo gabagabowday ee dalka Soomaaliya ka dhacday oo uu ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dadka saanay u dabaaldegayaan baabuurta iyo magaalada waa wada jaam dowladda Soomaaliya kasta ahaataba dadweynaha ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxay dareemayaan iyagoo shucuurtooda wadannimo ka muujinaya siday tahayba waana kuwan qaar ka mid ah dadweynahaas oo aragtidooda ka bixinaya sida haashi walaal aad baan ugu faraxsanahay runtii doorashada Soomaaliya ka dhacday waana mid taariikhi ah in maanta Professor Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweynaha Soomaaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu uga mahad celinayna cid kale ma uga haynaa ma jirto waxaan leenahay Professor Xasan Sheekh Maxamuud jiro joog waana u hambaleynayaa Soomaaliya meel kasta joogto waxaana ka codsanayaa in ay garab ku siiyaan xilka weyn oo uu qaaday Professor Xasan Sheekh Maxamuud anigoo magacaygu yahay Nuur Maxamed Kuulow joogana Islii salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan dabaaldeg aad u ballaaran ayaa ka socda guud ahaan xaafadda Islii iyadoo Soomaalida oo dhan ay banaanka u soo baxeen ay u dabaaldegayaan guusha uu gaaray madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxay leeyihiin madaxweynaha ha guuleysto waa markii ugu horeysay ee muddo 42 sano gudahooda lagu qabto gudaha dalka Soomaaliya doorasho waxaana ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud okay walaal sidee warata guusha uu gaaray walaal waa ku faraxsanahay waxaan wala soo dhaweynayaa doorashada ka dhacday mar dhowna waxaan rajaynaynaa haddaan ardayda Soomaaliyeed oo ku dhawaataysan meelahan in Allah waddankeena waxbarasho fiican aan keenno ayadigana Zaid ma sha Allah waa ku faraxsanahay Xasan Sheekh Maxamuud ma sha Allah good president Soomaaliya waa ku faraxsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh dareenkeena ma soo koobi karo cawada dareenka aad u faraxsanahay sida aad arkaysaan dadweynaha xaafadda Islii waxay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha ciyaaro kala duwan oo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ay caan ku yihiin ciyaarahan ay hadda tumanayaan kawrig sida aad arkaysaan ciyaarahaas ayaa madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya lagu soo dhaweynaya iyagoo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ay aad u ilaalinayaan gaarna waa ku faraxsanahay isbeddelka Soomaaliya gaartay qaxootinimo waa ka baxnay صاحب واكم فرحتنا هنا ما تعاقوا قرنوا تسوي مانتا مركب الكينة مانتا لما مدين كراي مانتا ومالي ويلي مانتا مدحين بنالي مانتا ومالي ويلي مانتا waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha cusub maanta loo doortay waddankeena siyaasaan leenahay weligaa noola waa jir alxamdulilah soomaaliya ha noolaato weligeen soomaaliya ha noolaato Come on.
maanta madaxweynaheena maanta 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 magacii haraage maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxiin banaani maanta مانتا خشني مانتا 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 عليه كمال مانتا 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 ومالي ويلي مانتا اوكي dareenkaaga ku aadan adoo ka tirsamaya madaxweynaha lagu doortay alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga cabdiraxmaan maxamed muuse aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha cusub aad baan u soo dhaweynaa dareenkaaga waxaan ku noqday markii muddo 20 sano ka bacdi madaxweyne lagu dareenkayga aad buu u sareeyaa waxaan aragnaa guul waxaan aragnaa Soomaalinimo waxaana tusaale u ah doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka sida u dhacday oo nabadgelyada ahayd sida magaraysa madaxweynaha waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaraha inay saa u dhacdo bismillaahir rahmaanir rahiim Umar Maxamed Axmed waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya saasoo tahay hadartan waxaan ka baxnay ku meel gaarka waxaana aan u baxnay dawlad rasmi ah oo dalka caalamka la shaqeysa waxaana ku faraxsanahay in madaxweyne cusub la doorto isbedel wadanka oo loo doorto waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad baad mahadsantahay dareenkaaga ku aadan adoo ku tirsamaya madaxweynaha maanta Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliya oo caawada noola doortay anaga waa laga fiican yahay in wadan oo shisheeye joogno waxaan jeclahay inta wadankayga tago aniga wadankayga ma arkin waxaan jeclahay wadankayga oo nabad ah oo madaxweyne fiican maxallahay caruurtan iyo maamooyinkan oo dhibaatada haysto in maanta dhibaatada ka baxanaya jeclahay wadankayga oo nabad in arkaa jeclahay aniga maxallaha waa ku faraxsanahay mid kasta ahaato dawladda Soomaaliya oo wadankayga oo dhisan dadkayga oo dhibaatada ka baxay waa ku faraxsanahay aniga naftirkayga waxa jeclahay wadanka marka tago inta wax u qabta jeclahay dhalinta iyo hooyooyinka marka madaxweynaha ku dhagan xaafadda Isli gaar ahaan ee magaalada Nairobi ayaa ka turjumaya dareenkooda ay ka qabaan balse ay u arkaan madaxweynahan cusub ee ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya waana kuwan qaar ka mid ah dadweynaha oo ka hadlaya aragtidooda ku aadan bismillaah anoo magacayga Mahad Cabdi Dhaarta waxaan ku noolaa Nairobi waxaan ku faraxsanahay maadaama maanta dawladda Soomaaliyeed oo doorasho xor ah wadankeena ka dhacday alxamdulillaah ilaah baa ku maadsan Soomaali dhan maxaa leeyahay hambalyo Soomaaliya oo noqonna insha Allah Soomaaliya ha noolaato faraxsan waxaan aad iyo aad u taagsanaa professorka imika la doortay magacayga waxaan adaa Cabdalla Cali waxaan maaragtay aad ugu hambalyeynaya professorka cusub ee madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliya loo doortay anigoo ah dadweynaha ku nool xaafadda Isli ee magaalada Nairobi waxaan leenahay jaallo madaxweyne guul iyo sharaf ay ku tahay wadanka Soomaaliya nabad iyo baraare gaarsii waa saqdhaxa habeenkii wali waxa socda dabaaldegi loo dabaaldegay madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wali dadku waxay u hambalyeynayaan madaxweynahan cusub walaal dareenkaaga waa sidee walaal dareenkaygu dalka Soomaaliya anaga saan u dhalnay ilaa xilliga aan qaan gaadhnay maana arag dawladana dareenkaygu aad wallahi caawa lama aad iyo aad meelan joogo ma garanayaba farxadeed marka waan taageersanahay nin kasta oo Soomaaliya oo dalka dhibaatada uu ku jiro ka badbaadinaya waanu taageersanahay waanu ku qanacsanahay waanu la shaqeynaynaa waanu ku laabanaynaa wadankan hooyi barnaamijkan waa barnaamij ay TV-ga Hon Cable TV ugu talagalay inuu dadka shucuurtooda iyo dareenkooda weydiiyo maadaama dawladda Soomaaliya ay ka baxday ku meel gaarnimada oo ay ku guuleysatay dawlad federaal inay noqoto oo madaxweynihii markii ugu horeysana lagu doortay gudaha dalka Soomaaliya walaal adiga shucuurtaada waa sidee shucuurtayda aad ay ku xasan tahay madaxweynaha la doortay soo dhaweeyna shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baaqaynaa in madaxweynaha u duceeyaan maxaa yeelay qof shaqada kaliya wadi karta ma lahan qofkana macnaha in Soomaaliya uma baahan hadda qabiil madaxweyne caadila islaamka ku hogaamiyo u baahan tahay waa in loo duceeyo
ninka la doortana aad soo dhaweynaa waxaan ugu baaqaynaa xilka loo doortay inuu ilaahay la garab galo ra'iisul wasaare fiican oo wadaniyad ah oo dalka iyo diinta u shaqeeyana inuu ilaahay ku toosiyo saas ugu baaqaynaa ilaahay ugu duceynaa markii ugu horeysay Soomaalida waxaa moodaa inay si isku mid u taageerayaan madaxweynahan cusub ay dawladda federaalka ee Soomaaliya caawa lagu guuleystay in lagu doorto gudaha dalka Soomaaliya adiga walaal shucuurtaada waa sidee wallahi hambalyo ay leeyahay Soomaaliya waxaan rajaynaynaa inay cageedu ku istaagto madaxweyne oo ku hambalyeynayna waana ku faraxsanahay shucuurteena caawa lama soo koobi karo waxaan leenahay madaxweyne waxaan ka sugaynaa wax qabad wanaagsan guusha madaxweynaha dalka Soomaaliya waxa si isku mid u soo baxay haweenka caruurta dadka waaweyn culimo oo diinka iyo waxgaradka bal markaan eegna haweenka iyo shucuurtooda walaal adiga shucuurtaada oo eegaya sida warata doorashada ka dhacday dalka Soomaaliya guusha ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud inuu noqdo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya si aad ayaan u faraxsanahay madaxweynaheena soo dhaweynaynaa waxaan ka rajaynaynaa inuu dalka nabad noogu dhigo qabiilna iska dhaafo daacadna noogu adeego madaxweynaheena ka codsanayna inaa wasaqna isli aan ka tagnan diyaar awnaan hadoo wadanka madaxweynaha nabad ka dhigo farxadda habeenkan weyn waxa laga dareemayaa guud ahaan waxa aad u dareemaya guud ahaan dadka Soomaalida meel walba ay ku nool yihiin gaar ahaan waxa aad looga dareemayaa gudaha xaafadda Islii iyadoo laamiyada iyo xaafadaha oo dhan ay isku soo baxeen haweenka caruurta culimo diinka waxgaradka iyo inta Soomaaliya ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi walaal adiga shucuurtaada see u aragtaa guusha madaxweynaha uu guuleystay waa farxad oo Ilaahay og yahay in wadankeeda uu helay independence marka Soomaaliya Ilaahay ha guuleeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u hambalyeynaya cawada shacabka Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogan gaar ahaan madaxweynaha cusub iyo gudoomiyaha cusub baarlamaanka Soomaaliya waxaan leeyahay Soomaaliya hambalyo caaway waxa idin dhalatay farxadiinii waxaan leenahay ku bishaaraysta madaxweynaha cusub oo xilka ka tanaasulana asaga waxaan leenahay wuxuuna soo gaarsiiyay meel fiican waxaan leenahay madaxweyne hambalyo adigana madaxweynaha cusubna waxaan leenahay midkii ummadda ka saara dhibka iyo qaxootiga iyo rafaadka noqo madaxweyne horta maanta waa maalin oo cusub oo Soomaaliya u dhashatay alxamdulillah caawa taariikhda ku beegantahay 10ka bisha 9aad sanadkii oo 2012 maxaa dhii lahay ra'iisul wasaare Xasan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhawaa kursigan sare oo sharafta leh oo Soomaaliya alxamdulillah dantaaduna waa gaarin doonaa Soomaaliyana waa jamc doonaa alxamdulillah ilaahay ama had iska leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyadoo ay caawa tahay habeen farxad leh oo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ay si aad iskugu soo baxeen ayaa dadweynaha qaar ka mid ah waxay dareenkooda ka dhiibanayaan ku aadan farxadan maalintan madaxweynuhu ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya waana tan Faadimo oo ka mid ah dadweynahaas oo ka bixinaysa dareenkeeda ku aadan bismillaahir rahmaanir rahiim oo ku faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliya maanta ayadana waa maalintii ugu farxada badneed aan Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya We are celebrating here in Kenya. We want to go back to Somalia. Inshallah, it will be peace. Inshallah, waxaan rajaynaynaa peace. We want to go back to Somalia. qobto inaan arag waan idin soo ducaynaynaa anagana proofkayga noogu dhaqsada okay aad ayaad u mahadsantahay walaal adigana walaal dareenkaaga ku aadan madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya walaal anigoo ah dhalinyaro Maxamed Cabdikariin Sheekh Ibrahim oo ah dhalinyaro Islii ku dhagan shucuurtayda cawada ma aha mid la soo koobi kara marka halkan waxaan hambaliyo bogaadin ugu darayaa madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweynaha noqdo kii maarta ummad dalka iyo diinta iyo dadkiisa anfaca ummadan ay ku dirsato dhibka labaad soo daashana ee kii ka saara sabab noqdo inuu ka saara waxaan leeyahay guuleyso noolaaw mudane Xasan Sheekh Maxamuud noolaaw intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan ku eegaynay dareenka dadka ku nool xaafadda Islii sida ay u arkaan doorashadii ka dhacday gudaha dalka Soomaaliya oo lagu doortay madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijka waxa ay la daadihinayay wariye Axmed Cabdiraxmaan Haybe dhanka kaamirada iyo farsamada waxa naga saaciday Xasan Kaafi Maxamed Xalane intaan barnaamij mid kan lamid ah ku kulmi doono oo Cabdi Fataax Maxamed Cilmi idin kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo